suldaan waxaanu ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhageysanay barbaraad maraysaa iska noqo oo tolka go'aankay qaateen la qaado waayeelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku saleysnaashay dhaqankii Soomaalida maanta oo maalin sabti ah waxaanu joognaa magaalada Laascaanood xaruntii gobolka Sool halkan waxaa fadhiya salaadiintii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidaad nooga barateenba annaga hadalkayagu ma badna laakiin marka wax jiraan maalintii horena waan sheegay inaanu hadallo waliba hadalkaanu maanta ku hadlaynaa oo noqdo kii ugu dambeeyay waa waajib weey xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii anigu aanan garanayn laakiin yiri suldaan baan ahay laakiin uu ag fadhiyey suldaanka guud Suldaan Daa'uud oo uu yiri wafti baanu nahay dhaqana oo erga ah oo Laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedheen warnimayo arrinkaasi waxa weeye ninkii maamaahay wuxuu yiri geel waana hori jirnay waana hayn jirnay war erga waan naqaanaa waana naloo geli jiray waanu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed u soo dhaqaaqday marka wax dhacdo oo cidna waxba weydiin oo meeshii wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo waa mis subxaanallah weeye labada erga midna anagu ma hayno erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa Muuse gaarsiisay oo aanu ka hadalnay war waxaanu maanta cadaynaynaa inaan anagu cidna u yeedhin waxaanu cadaynaynaa inaan cidina la soo hadlin waxaanu cadaynaynaa cidna la soo xidhiidhay midna ayna jirin Suldaan Daa'uud waxaan leeyahay agtaadu fadhiyay ninka hadlayay inay suldaanka Ayuub baan ahay anu Ayuub waan aqaanaayo Suldaan Uwaas Axmed baan aqaanaa mar haddii Suldaan Daa'uud agtaada uu fadhiyo waftigaagana uu ka mid yahay oo uu leeyahay suldaanka arrinkaas wax ka og oo garaadadii iyo waxa weeye uu la soo xidhiidhay waad ogtahay Suldaan Daa'uud labadeenu maalintii Ilaahay u naxariistay aabaha dhintay ayaan ku tacsideynayay baa teleefankeena isugu dambeysay dhowr jeerna xafladeen isugu nin ilamaad soo hadleen garaadadan gobolada Sool iyo Sanaag lama soo hadleen mar hadday sidaa tahay suldaan waxaanu ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalay oo bayaankoodu waa dhageysanay barbaraad maraysaa iska noqo oo tolka go'aankay qaateen la qaado oo iska noqo annagu waxa weeye suldaan lama aan soo hadlin kulama aan soo hadlin ummadana waxaan u sheegaynaa mar haddii hadalku soo noqnoqday war hal la ogaado war hoy annagu cidna umaanaa yeedhin cidna la soo hadashay ma jirto ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa walaalaha waqooyiga u sheegaynaa in ergadan soo noqnoqonaysa ee lagu been abuuranaya inaanay jirin war ma jirto war dhaqanku saama ahaan jirin war dhaqanku labada qodob buu ku iimaan jiray erga waxa weeye annagu marka wax dhacaan toos baan u tagi jirnay anagu cid la hadlin iyo ergasha soo sheegto la soo dhaweeyo war mar haddii aad war aan jirin ka soo horeysiinaysaan oo aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan sidee baad erga u noqonaysaan sidee baad waxa weeye wixii la idin dhiibana aad run uga sheegaysaan mar haddaa sidaa tiin waad fashilateen iska noqda warkaasna maanta halkaa ku haro beelaha garxajisna waxaan leenahay iyadoo la iga dambeyn doono dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaajaqaadka abaati sidaa aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiigooda aad waxa weeye wagli gadateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weeye waana raggii wixii lidinku yaqaanay weeye beelaha kalena waxaan leenahay haddeedan arrinkan raalli ka ahayn sidaa uga hadla assalaamu calaykum waraxmatullaahi raxiim bismillaahi raxmaani raxiim saxaafadda iyo golahan aanu joognay odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo fiidiyowga daawata waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa hadalku badaysin baa yiri hadalkaygu maanta ma badna warar fara badan oo intaas hor iyo daba maraya oo si dadka jaahwareer u geliyay un baa lagu kalifay kelmada laga yiraahdo koow annaga horta ma diidin nabadda labo ma diidin xabad joojin laakiin wax si sax ah oo toos oo socda ma baanu arag marba hadal meel laga soo duubayo iyo kelmada la warfinayo iyo qaar la terrorism aan la dagaalamaynaay kulli bilaada ku dhari way dhigaysanayeen marka bal qolyaha waxaan la marba hadalkina sax ah oo hadalkuna jaha uu ha qabsado ama xabad ha qabsado
أنا حبت شوشني أنا بضحك أبصر قل يا أنت صار لها وبهاش يسكسح الدين هو نقول الصوت وانا اسقاها الله ميديا wax soo qor mid yaacid baan la hadlay mid yaacid halka terrorism baan dagaalameyna oo wax la yaab leh warbal si sax tadilaahi ka baqdaan waayahay erganimada dadku waa Soomaali waa la yaqaana dhaqanku wuu soo hadla wala wada hadla agay isugu nimaadna waxaynu yeelaa hataa halkaas baash processkaas waa loo soo maraa qaar iska soo duulo markuu isjoogta yaa weydila joognana waa la arki laakiin mid isagoo gurigiisa jooga iska leh hebel baan la hadlay halkan aan ka hadlay oo baraan baxaya oo waxyaalaha ku cusub kulli dhaqanka aynu niqiin hadalka odayaasha raab soo ururiyay aad u talax tagi maayo wixii arrin weynoo dambeyn doonaan waayelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku saleysnaanaysa dhaqanka Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantihiin cid kasta waxaan u cadaynaynaa xabad joojin iyo nabad baa la diiday cid ku marmarsoon doontay waa been wax u socda iyo wax wada saxan haya midna ma aan arag salaam calaykum kadib kana jaabac hadalka uu yiri inteedoo dhan waa la qabnaa ana waa ku raacsanahay isagoo dhan waa hadal uu yiri oo lagu tashaday taasoo waa inta hadalka kale isaga ka jawaabay waxaan la adkaynayaa ta xagga garxajiska go'aankiisa ku saabsan dowladda ama Soomaaliya taariikh bay leedahay iyada oo dowladnimada Soomaaliyeed aan hadalhayn reedab khaatimo meel la yiraahdo yay fadhiisteen marka garxajis waxay ku baaqeen Soomaalida socodaysa nabad iyo dowlad gudub waa taariikhdoodii tan maantana sidaa ay u hadleen waa tala aanu isla dhiqin weligayana horaan u idhi tala iyo tayiisa naga dhaxaysa waxa uu laho weyna kuma kala hadno weligayaba imikana waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa go-aankiina waana ku shaqaynaynaa meelaha kalena dee ciddii garashadaa leh ha laga arko asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu